wadahadallada lagu dhexdhexaadinayay Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya ayaa guud ahaanba natiijo la'aan ku soo dhamaaday. Heshiiskan garwadeenka ah ee dowladda Turkiga ayaa caawil xaqiijiyay inaysan wax aba yaraatay natiijo aysan ka soo bixin. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Turkiga Hakan Fidan oo ay barbar taagnaayeen labada wasiir arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa ku dhawaaqay in wadahadallada la doonayo lagu dhexdhexaadiyo Soomaaliya iyo Itoobiya aan wax natiijo laga gaarin kadib markii qodobada qaar la isku fahmi waayay. Dowladda Federaalka Soomaaliyeed ayaa ku adkaysatay inaysan wax wadahadal la gali doonin dowladda Itoobiya ilaa ay ka laabatay heshiiskii sharci darrada ah ee bishan koodeeda la gashay maamulka Somaliland. bishan September isla sanadkan ayaa la filayaa in mar labaad la sii anbaqaado wadahadallada u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya oo ay garwadanta ka tahay dowladda Turkiga. dhanka kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay madal lagu soo gabagabeeyay munaasabadda kooda Luulyo oo lagu qabtay madaxtooyada ayaa beeniyay in wadahadallo ay la gali doonaan ururka Al-Shabaab. hadalkan oo maalmo la soo dhaafay baraha bulshada si weyn lagu qaada dhigayay ayuu madaxweynuhu beeniyay wuxuuna tilmaamay inaysan iyaga Al-Shabaab wax ka dhacay aysan jirin isla markaana aysan la gali doonin wax wadahadal ah.